aabuu naga reerka soo ma kaxaystay tigidhada hooyo la gura shaashada dadka kale u dhaafa komitigiilayaasha sheekada ila gura haya iyo qaadi anagoo yaryar baa hooyo iyo aabba kala tageen deetana aabba uu naga soo kaxaystay hooyo waa gabadh gartay buu guursaday gabadhii buu noo geeyey eeday xaaladaheeda waad iska garanaysaa ee xaaladaha markay nagu jeexjeexday oo aanu iskalaba joogno ayaa waxaa dhacday maalintii dambe aabba iyo eedda islaayay waa gartaa aabbana bartii buu kaga tegey eeddana bartii bay nagaga tagtay annagii waa oo gartay keliyaata ayaa isku soo hadhnay waa gartay odaygiina dhinaciisu u xanaaqay islaantiina dhinaciisa u xanaaqday carruurteedii oo keliyaata guriga ku soo hadhnay adkaa tahay haye waxaa dhacday markaa aabba magaalo kaluu tegey magaalo kale markuu tegey xaafadii dadkii baan la soo hadalnay dadkii baa noo yimi dadkii baa na kaxeeyey aya muddo markaanu joognay ayaa aabbayo gabadhii dib u heshiiyeen magaaladii Waa magaalo gartay. aan ahayn oo kale ayay markaa joogaan oo magaaladii aan dadka ka garanaynay aan ahayn waa gartay 10 daqiiqan dhahnay waxaa ku gaadhaynaa 1 milyan 8 daqiiqa hadhay maxaa waaye 800 baa maraynaa ku soco dib uu noo kaxaystay aabbo gurigii haddana eeduu sidii noo geeyey gurigii eeddo markuu sidii noo geeyey oo haddana aanu muddo xoogaa alla joognay eeddo oonu weli aad u yaryar nahay ayay sidii oo kale odaygii islaantii islaayeen waa gartaa bartii bay haddana nagaga tageen mama labaad haa mar labaad oo aabbana dhinaciisu iskaga baxaya ciddana dhinaceeda dhinaceeda iskaga baxaysa waaba aabbe cilaaj jabiyey aabbahaas maxaa ku tilmaami leyda waaba aabbe cilaaj haya deetana muddo markaanu meeshii joognay oo aanan meeshii cid ka garanayn oo magaaladu magaalo aanu cid ka naqaana aan ahayn sheego tankiyo madaxa korkiisa oo meeshii aanay ahayn meel aan cid ka garanayno baanu islaan noo habaryara raadinay islaantii baanu soo helnay islaantii baana soo kaxaysay hooyaa markaa warkii loo sheegay hooyaa noo timi hooya markay noo timi 12 sanaan jiraa markaa waa gartaa carruurtana marka anigaa ugu weyn curad baa tahay yaa curada inala jooga caawa imsaa curada aniga waa laiga weyn dad badan iga weyn ku soco ayaa waxa dhacday ayaan hooyo ku idhi hooyo anagu maalin kasta dayac ku jiri mayno haddii aydan adiga iyo aabba isku noqonayn oo aydanna wada haysanayn aniguna meeshii iga soo horbaxdaan u dhaqaaqaya inamadana meeshay doonaan ha aadaan hadday doonaan balwad ha bartaan waa gartaa aabba iyo hooyo waan isku celiyey maasha allah aabbiyo hooyada isku celiyey haa war maasha allah soo qora waa inantii ugu horreysay ee inan aabbaheedii hooyada isku celisay maasha allah usoo wada qora dhammaantiin ku soco aabba iyo hooyo waan isku celiyey aabba iyo hooyo markaan isku celiyey oo aanu meeshii in muddo a joogno oo noloshu markaa isku kaaysto dee way ka farxad badan tahay carruurta marka hooyadood iyo aabahood wada joogaan markay kala maqan yihiin oo markastay kala tagaan hooyada iyo aabuhu awlaadana way saamaysaa run waaye oo ay farxadaydu isa saaran tahay ayaa aabba wadamadan waddanka soomaaliya jaarka la abuu shaqo tegey hooyana markii horeba dubay bay ka timo dubaydeedii bay ku noqotay waxay carruurtan dhibaataysan aabbana uu iska tegey hooyana iska tagtay markan laakiin waa waaweynaanay oo dad waaweyn baa noqon waa gartaa xaaladahaba deedna waxa dhacday anigii baa reerkii iyo carruurtii mas-uulka noqday oo guriga haya oo furihiisa haya oo carruurta cuntada u kariyo carruurtii waxbarashay bilaabeen markan anigaa gabadh weyn noqday waa gartaa gabadh weyn markaan noqday oon meeshii joogo ayaa waxa dhacday ay muddo sidii tahay oo ay reerka hooya soo biisho oo aan anigu markaa carruurtii biilkoodii gacanta ku hayo qof markaa reerka maamusho aan ahay aan 14 sano gaadhay oon tamaandho noqday markaa aad bislaatay aan bislaaday hablow imsaa bisil waan soo qora intaan weli bislaantu inantu markay bislaato waa markay aad fahmaysaa noo marinaa ku soco aadawood aadiyaad oo aan isku arkayda inaan gabadh weyn ahay iminka oo maasha allah noqday baa waxaan isbaranay inanku markaa iskuul buu dhigta waryaa hablo way wada bislaadeene haa way bislaadeen aad iyo aad inan baan isbaranay markaa iskuulkaan wada iskuul dhigan jiray oo inan yar markaa ahaa inankii markaanu muddo sheekaysanay ayuu yiri waan ku soo doonayaa waayahayo inankii wii soo doonay
waa lay siiyey uu ila aqal galay maadaama uu ina yar ahaa oo aanu de reerkooda uu la noolaa aanu shaqaynayno markaa iskuul uu dhiganayay waxaa dhacday qol yar baa markii horena loo kareeyey qolka yaraad haddaan xoogaa joogno oon iska ladanahay oo ay noloshu isku kaaya haysato haa de ma inanka yar waxba ma haysto markaa noloshiisa waa la deberaa oo adiga markaa maxaa kuu geeyay waxaan waxba haysan de tamaantaan noqday waan bislaaday soonika kuwedh oo carruurtiina kaga tagtaa inamadayadii markaa markii hore horta intaan qolka lay dejin qol i deji gooniya baan ku iri markaase waxay tiri islaanti may waa inaad aniga ila soo degto gurigan qol iga xidhxidhay gurigii baa qolkii mar haddaad bislaato ma acuudu billahi min ashaytaan deetana qol baa gurigii layga xidhxidhay qolkii markaan joogo oo inamadayada yaryaraa iyo reerkii carruurtii ay yar dayacmeen ayaan isagii waxaan ku iri waxaad samaysaa qol banaanka iga karee aniga waxaan rabaa inaan banaanka dego si aan carruurtayada ay iigu iman karaan oo ugu yaraan cuntadooda 3 waqti aan u kari karo waa gartay uu iga yeelay qolkii baa layga soo kareeyay banaanka qolkii markaan joogo inamada yar biilkoodii lay soo diro oo isagu maadaama aanu shaqayn karadaasoo iga bixiyaan oo carruurteedii aan gacanta ku qabtay inamada yara soo noqdeen oo aan dayac tiray oo cuntadii u kariyo 3 waqti oo noloshu isku kaaya haysato oo ilmihii koobaadna aan dhalay ayaa islaantii sodohday waxa laga fujin waayey gabadhani waa inay soo xirooto waa inay guriga timaado inana waa inaad keento ay guriga soo degto guri sodohda haa yaa bilaayba hadday bilowmatay hablow ma ogolaan laydeen guriga sodohdii inaad degtaan imsa ogolaan laha ma ogolaan laydeen yes or no haye hadda faadima kuu bilowmatay xaaladdu marka haa waa inaad gabadhan soo hoyso ay guriga kusoo noqoto waa gartaa istiijid dheer kadib waxaa khasab noqotay inaan gurigii ku noqdo oo aan reerkiid la dego islaantani markaa keliyata waxay ka xun tahay noloshan carruurtayada aan u samaynayo sidii hore aan u hayo oo nolosheedan isqabsatay ayay ka xun tahay inaa lillahi wa inaa raajicuun weligii lama degin waa qosolka sodohdii waa la degi lahaa waa oohinta imsaa la degi lahaa no waa qosolka haye anigu oohintaan taas dabeetana waxaa dhacday halkaa markay marayso oo ayn islaantii ku noqonay oo carruurtii raraa suuq iyo hodheel ay iska fuuleen hodheelkaa cuntada ay ka cunaan oo ay noloshoodii hore u wataan iyagu anigana ay khasab igu noqotay oon islaantii la joogo uu ilmana aan u dhalay ilmihii koobaad aan u dhalay ayaa waxa dhacday wuxuu u aaday sidii u joogo gurigii oo islaantu markaa ay baxdo ay timaado oo gurigu dee waad garanaysaa guri aan markaa aadan adigu xor u ahayn oo waxaad karsanayn oo reerkaa bariiska aad la cunayso ay noloshu sidaa tahay ayaan ilmihii labaad caloosha ku qaaday ilmihii labaad baan umag maasha allah waa garta haa ilmihii labaad markaan umulay ayaa hooyo dubay ka timi hooyo markay dubay ka timi ayay la soo hadashay waxay igu tiri waxaan rabaa inaad berri noo timaado aanu qado wada karsanno oo aynu halkan wada joogno waa gartaa hooyo waayahay baan ku uriyo aroortii markaan ku raacannay baan baxay oo gurigii hooyo tego carruurtii reereed qaatay oo carruurtii reereed markaan qaatay ee hooyo halkii qadadii noogu karisay oo xidhna ay soo saartay oo maalintii oo dhan hooyo la joogay ayaa habeenkii gaadhi laysoo kareeyey gurigii baan imi waa gartay shaashadda maxaa waaye waa ilowdeen waxaas laa way gaadhin 1 milyan maxaa dhacay 150 keliya 2 mir baa ku gaadhi kartaan what's going on team adkaaray amaad kidmiya markaan aan carruurta hayo intaana guursan markaa aabba uu dhintay allah u naxariisto agoon baan deetana waxaa dhacday gurigii markaan ku noqday habeenkii gaadhigii kareysay hooyo dee gabadh hooyadeed soo degto maanta oo dhan la soo jeegtay faraxsan oo xinno loo soo saaray oo waqti la soo qaadatay gurigii markaan imi oo isaguna uu gurigii yimi ayay islaantii waxay ku leedahay gabadhan iska wareegaysa ee iska baxaysa waan maqlaya gabadhan iska wareegaysa ee iska baxaysa in amar xitaa ku weydiinayn sanbac baa tahay gurigaad iska taagan tahay waxba ma kala ogid islaantii halkana ka qaylinaysaa isagii bay marka aduu ninkaaga wax ma sheegtin miya wax ma weydiis
may waan weydiiyaa laakiin de wax saa u badan markaad hooyadaa u tegayso wadankii aad joogto mar kasta kama amar qaadanaysid ninkaaga oo hooyadaabaad u tegaysa waa inaad ka amar qaadata hablow wadankii adoo jooga oo hooyadaa u tagaya ninkaaga inaad sheegto soo maa yes or no waa inaad u sheegtid waa qasab abaya waa ma gartay inaad mar kasta tiraahdo Muna the one and only Muna Queen in the building ku soco I waa love run you. xayaad yes waa run wallahi haa wey No diiniyan way aan ka no hadlaani ku soco de may diiniyan haa laakiin markaad de maalin kasta anu hooyada diiniyan aan ka hadlaa wadankii socdo wax kale ma jiraan ku soco baad deetana waxaa dhacday anaga taayada noo daa waxa dhacday halkaa markay marayso oo uu halkan islaantii ugu dareysaan maqlayo buu gurigii soo galay xageed aade maanta walaal hooyaan aaday halkan markaa uu gunuusayaayo ilmihii yaraaban markaa seexinayaa oon seexiyey waxaan diidayaa qaylada iyo sanqadha in ilmaha yar ku kacdo maxay hooyadaa saa u leedahay maxay igu kaadiraysaa waxaasoo dhan maa weydi laakiin isagu markaa hadalkii hooyadiisaa taabtay dagaal buu diyaar u yahay waa gartaa deetana wuxuu igu idhahdaa waxaa sime waka halkaa yaala meeyey de marba kelmad buu iigu soo adkaya war wuxuu waka halkaa yaalo dagaal buuba halkii bilaabo walaa maxaad iila dagaalaysad iigu buuqaysaa waan kugu buuqaynaaye haddaadan dagaalkii buuqay qaylada u adkaysana warqadaadi wataasi orod bax hal dalqaan kugu fura ninkaas ma sanbac ba mise waa nin wanaagsan hablow sanbac miya ya ninkaa gabadhiisa iska furay isagoon waxba samayn ba idhi nadhaafnaya doqoniye halkii dalqad markuu igu furay iska baxyo habeenkii halkii baan seexday aroortii baan xaafadeedii hooyada ila hadlay gaari baa lay soo diray gurigaygii baan tegey gurigaygii markaan joogo aan baxay ayuu 2 dalqadood oo kalena meel ku qoray ya habeenkii hal dalqad bii furay warqad kale wuxuu ku qoray 2 dalqadood oo kale dalqad horena dhacday haddana aan 2 dalqadood ku furay 2 dalqadood markaan anigu lamaan ogey rasaastu kaa daba geeyey u ku meyd garaacay dumar meydkiina qaata meydkiina qaata markan waaye gurigii markaan tegey ayaa inan walaalkiisa oo qurbaha joogaa lasoo hadlay oo soo hadlay xaafadii lasoo hadlay oo yidhi reerka ha la isku celiyo carruurta ha la isku celiyo anigaa soo biilaya bannaankay degayaan waxaan ballan qaaday inaanay gurigaa ku noqonayn ha la sameeyo ha soo noqoto gabadhii ha la isku celiyo acuudu billaahi min ashaytaan ma ninkaasa ku noqonaysa caawa faadama meydkiina la qaadateen hablow ninkaa ma ku laaban laydeen ya deetana markii loo tegey isagii ee la yidhi war maxaa siya wuxuu yidhi de waan rabaa reerkayga waan jeclahay laakiin habeenkiyada dalqad baan ku furay markay baxdayna 2 dalqadood oo kana warqad ku qoray culimadii markii loo tegey waxaa la yidhi dee waxba ma hadhin 3 dalqadood saasay ku dhanta dalqadna mar bay dhacday 2na mar kale dhacday markaa sidaas ayay ku dhantahay gabadhaasoo dee nin kale intay guursato soo furta mooyaane oo maxlal kale la raadiye mooye saasay u kala dhammaatay gurigaygii baan iska joogo halkii baan carruurtaydii ku haystayo reerkaygii baan la noolaa inamadayadii iyo reerkaygii halkii haddii aan joogo ayaa waxa oo aan dhowr qof oo kalena nagu soo biireen hooyana ay meesheedii ku maqan tahay ayaa waxa dhacday wiilkii walaalkay kii aniga igu xigay baa gabadh soo guursaday thank you wiilkii markuu gabadh soo guursaday gabadhii baa waxay nagu noqotay gabadh naxiiminaysa gabadh aanna arki karayn gabadh doonayso gurigan inaanu ka dareerno oo ay iyadu gurigan u hadho waa gurigiinii waa gurigayga inoogu timay loo soo guuriyey acuuduka billaahi min ashaytaan rajiim waxay nagu soo diraysaa inankii markaasuu inankii qofkii ka hor yimaadaba maqli jirtay awr awrooday nin aaga wadaa midna kaama leexdo tii ka hor timaadaba beerka kusii laagaya ya inankii bay nagu soo diraysaa walaalka ha wuu idin garaacaya isna ha acuudu billaahi min ashaytaan rajiim arrintu markay sidaa tahay 4 baan ahayn markaa 2 wiil iyo 2 hablood inantiiga yareed waa la guursadayo inan Yurub jooga baa guursado Yurub buu ka haystay aniga iyo 2 wiil baanu nahay 2 wiil mid waa kan gabadhan nadhibaysa ee naximinaysa ee dumaashidan xun soo guursaday kii yaraa markaa xoogaa meeshii ay noloshii nagu adag tahay gacanka xaq daran buu ku dhintayo
isagii waa la dilay kii yaraa ilaaha u naxariisto haya allaha u naxariisto isagii aababa markaa deetana waxa dhacday kii weynaa markaa hooyo meesha way kasoo kaxaysayoo xoogaa markii dee walaalkii la dilay yar neerfoos buu noqday meesha kasoo kaxaysay Ethiopia keentay halkii haddaan joogno gabadhii sidii aanay ii arki kareen oo hablihii yaryaraa markaa xoogaa ay ii koreen ayaa waxaan isbaranay muusihii labaad hadda adkaatay marka bad gashay Faadimo haya muusihii labaad markaanu sheekaysano ayaan waxaan rabay markaa hooyo oo magaalo kala joogto markaa timi inaan u tago deedna islaantii sodohday baan u tego waxaan ku uri inantay labada taweyd iisii hay intaas soo noqonay waayay bay igu tiro islaantii way iga reebtay markaan soo noqdayna waxay igu tiri ilmaha haddii ay hooyo gurigayga joogaan iyo haddaad adigu haysato waa isku mid adigaana dhalay anigana carruurtaydii way wada waaweynaadeen marka guriga ha iska joogaan aniguna aan haysto macruurtaadii ها يا ها maadaama aanad dee hadda meel aad geysa aanad haysano gurigii dee walaalkay gurigaygiina gabadhii ay dhex fadhido oo deetana hooyaan la tashado waxaan ku uri hooyo saasay ileedahay islaantii maxaan sameeya waxay igu tiri waa hooyo aniga iyo iyadu isku mid baan nahay haddaad hablahaaga u dhiibto oo ay kuu hayso dhib male intaad meel reerkii soo eriyay baad reerkii carruurta u dhiibaysaa ha ilaahay baan ku dhaariyay gabadhaas waxay qiil nooga dhigaysa daawo carruurteeda waxa u dhiibsaa kuwiyeeda soo dhibay waxay rabtaa inay muuse keligeed ku noqoto oo qol yar isla degaan markaa waa sheekaysanaa markaa waa sheeko guur baxitaa lama gaadhin laakiin muusaa soo socda dee danteeda waxay ka hormarisay inay muuse ay ku keligeysato lagugu dhufay ma doqon baa musoo fariid waaye haya fariid deetana waxaad lugaa dhiiqaha ii gelin deetana waxaa dhacday halkaa markay marayso oo aan islaantii carruurtii labadii hablood ee raaba u geeyey oo aan hooyo la joogo oo markaa aan isleeyahay nolol samaysto mustaqbal kale samayso ama shaqayso carruurtayduna dee si qurux badan ay u nool yihiin ayadood haysato aan dayac iyo waxba aanay ka muuqan ayaan muusihii labaad isguursanay anaa idiin sheegin ilaa baan ku dhaariyey haye muusaha labaad horta waa military xuduudaha si fiican u suga kii hore mulaa boolis buu ah kani waa military dhaafay waa gartaa iyadoo ay markaa nolosha noo qurux badan tahay oo aan si fiican wada nool nahay oo aan banaanka deganay markaa aanan reerka la deganayn oo ay noloshu iskaaya haysato ayaa waxa dhacday wuxuu u baxay Nairobi wuxuu tegay waxbarasho iyo barasays ilmihii koobaadna caloosha lagu siday halkii markuu tegay oo aan muddo halkii joogno ayaa waxa dhacday waan baxay magaaladiiba waxa ka dhacday rabshado iyo shoobara magaaladii ka dhacay magaaladii baa laga guuray waa laga baxay aniga iyo reerkii hal magaalaan tagnay hal guri baan isla kiraysan sodohday tii dambe adu sodohyo badanisa caawa haya thank you tii dambe de waa tii labaad magaaladii baan ka baxnay meel markaa magaalo kale aan u guurnay hal guri baan wada kiraysanay guriga markaa waxaa joogtaa islaanta sodohday inan ay dhashay nolol kasoo burburtay gabadh yaroo qaraabadooda ah oo guriga ka shaqeysa saddexdaasaa jooga waa garta inantan dumaashiday baa habaar qabtaa oo islaanta kugu diraysa oo ku dabagelaysa oo dadka iskaga dhashay inay dadka la ficiltamaan dabagalaan ah islaanta markaa hooyan u aaminsanahay oo wax kastay tiraahdo hadalkeedu ima dhibo laakiin tan yari hadday laba kelmadood ay tiraahdo laba fiilaa iskaga taabto waxaan dareemayaa in qof ila eegda uu ila ficiltamayo hadal khaldan uu igu yiri meeshii baan kasoo noqonay meeshii markaan kasoo noqonay ayaa islaantii waxay tiri magaaladii aan kusoo noqonay oon guri weyn kiraysanay ayay waxay tiri islaantii anaad ila degaysaa oo halkan aad ila joogaysaa waa gartaa aniguna waxaan idhi kula joogi maayo kulamana degayo islaantii markaanu isqabsanay ayay islaantii waxay igu tiri
laba mid baad soo kala gelaysaa inuu ku furo inankaygu iyo inaad ila degto يا inuu ku furo oo lagu furo inankaygu anuu imaqlaay iyo inaad ila degto تقول لدق يا لو فرنا هبلو هدي لنا أول فريا ما صدوها لدق لنا صدوها لدقتين فرنيك هو هلسه صدوها لدق دولا وحوين معي يا هديك لو فريا ده هلا إفراء أعوذك بالله من الشيطان يا هلا إفراء وقصلك صدوها لدق لأنه عبسني وأنت كسر deetana waxaan ku yidhi hooy dhegayso haddii aad ifuraysan inankaaga dalqada adigu u hayso hadda soo habeen maaha waaguyuu kuugu beri هيا hadda ka soo qaad هيا waayahay bay tiriyo islaantii sidii baan ku kala tagnayo isagii bay la hadashay islaan markaa islaanta eedadeeda la soo hadasho ku tiri maxaa reerka ku dhex geliyey لكن هو خلدنت فاضي هيا horta hadalkaa gabadha ma lagu furayaa soo sheega islaantaas wiilkaa ma ka furi doontaa كسر deedna waxa dhacday islaan baa la soo hadasho ku tirnaa maxaa reerka ku dhex geliyey ood carruurta u kala furaysaa oo guriga u duminaysaa oo ku dhex dhigay oo kaa galay meeshay degayso meedan qofku inoo xishoonaya ahayn islaantii markaa wiilkii bay la hadashay waxay ku tiri waxaad samaysaa waxaad ku dadaashaa inay ila degto aniga aanay meel gooniya deg هيا wiilkii uu yimi markaa wuxuu isku dayayaa si farsamaysan inuu iiga saxeexo inaan islaanta la dego هيا cashuu ii geynayaa magaaladuu ii saarayaa hadiyad buu keenayaa waxaan ku idhi si fiican buu u dareewalinayaa xuduudu si fiican u sugay wuxuu iga sasabayaa inaan idhaahdo hay hooyo waa la degay ما كنت سباقني ده حد ما حتري ها uu la xamaynaya هيا سبحانك يا عظيم والله واضح قلاتي مركا ساسد كو قلاتي كسر ma ogolaatin samay ogolaan soo sheega way ogolaatay anigu waxaan dhahay boqolkiiba boqol ogolaatay idoo ugu dhex laxamay ilaahay mid ku dheeray midaan ogolaateen waa ogolaatay wallahi ku soco horta yana dhaarasta laakiin hadda saac sheegtay tay waa qasab ku soco cashaa lay geynayaa hadiyad baa laga keenayaa dhinac kasta marka aan mabsuud noqdo waxa laleeyahay ka waran haddaan hooyo la degno wax kasta okay baa ku ahay laakiin attentionkayga uu soo jeedaa no baan la taagana no qaata meydkiina wax kastaad samayseen wax kastaad samayseen may astaqfirullah laakiin waxba khalada ku soco waxa dhacday halkaa markay marayso gurigii baa laga ogolaaday inaan banaanka dego inankii annagoo isku fiican noloshu isku kaaya haysato aanu isjecelnahay oo aanu maasha allah isku nahay ayaa jabba waa ka dambeeye inankii wuxuu bartay balwad balwad ha bartee balwaddii waxa u raacday dumar ya balwad buu bartay inankii kasoo noqoy guri baanu kooni aanu degnay noloshu waa isku kaaya haysataa waanu isku faraxsannahay balaayo dhexdayada ma taalo inankii wuxuu bartay balwad waa gartee balwaddii waxaa u raacday dumar haya inankan ma dabagalo ma ilaaliyo ma kaantaroolo teleefonkiisa ma baadho noloshaa farxaddayadaa iyo gurigaa iyo adduunkaygaasuun baan ku mashquulsanaa maalintii dambe ayaan isagoo jiifo subax ba waxaan ku idhi biilkiisii markaasuu yidhi teleefonkayga qaado ka dirso teleefonkii aan ka dirsanayay waxa saaran message whatsapp naftu waxay tiri un messagekan saaran muxuu yahay bal kusii dhufo messagekii baan kusii dhuftay waa gabadh laysla sheekaysanayo oo laysla googo'ay oo muddo dheer xidhiidhku soo socday haya ilaahay baa afar u baneeyay leeyihin dumarku caadi haya oo muddo dheer xidhiidhku soo socday oo xitaa ay ku leedahay warmeeday xaaskaagii miyaanay joogin uu leeyahay ma joogto guriga hooyo ku maqanta anigoo jiifo xitaa korkayga uu kula sheekaysanay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun
يا ugu dafiray ba ها haya adkaatay waxa dhacday halkaa markay marayso in noloshu sidaa tahay ayaan biilkii baan qaatay waan soo adeegay quraacdii baan sameeyey quraacdii markaan sameeyey markaa naftu waxay leedahay ma kicisaayo ma soo jaftaa haddana waxaan is leeyahay ha iska jiifo soo kicin lahaydeen soo dayn lahaydeen inuu jiifo hablo waa iska daynaya waa ninkoodii waa hablo maxaa laga kicinaya waa wax weynba maaha ku soco haya quraacdii markaan sameeyey ay igu simi weyday inuu sii jiifo qolkii baan ugu galay waan kiciyey haya maxaa kugu dhacay weligaa maad kicin hurdayga maad kicina maxaa kaa khaldan maaseejiyadan eeg oo naagtani maxay ahayd maaseejyadani maxay ahayd oo naagtani maxay ahayd oo dee waad garanaysaa khilaafka halkaa ka iman karayo inuu yidhaahdo waa been waxaani ma aha wax waa horaa bay ahayd iyaday daba socota maxay ragga horta u yidhahdaan iyaday daba ordayso iyaday daba socota orantiisa dee orantiisa annaga waxaa ma daba galnaba haya anagu telefoonadii namba baadhin waxaad ka igu baadhaan adigu haddii aana daba socon haya halkaa markay marayso maalintaasaa markaa buuqaygii koowaad bilaabmay buuqaygii koowaad markuu maalintaa bilaabmay noloshu maalinta maanta ka dambaysa way kasii adkaanaysa haya dadka qaar kaftankayga run moodaya mararka qaar waan kaftamaya dadka nagu cusub ama dadka kale mararka qaar anoo kaftan tuuraya haddaa aragtaan only sheekada idiin macaanina laakiin waa kaftan waxyaabaha qaar ku soco maalinba maalinta ka dambaysa nolosheedu way sii adkaanaysa maalinba maalinta ka dambaysa buuqa uu sii kordhay maalinba maalinta ka dambaysa xuduuduhu sii jiiday wuxuu bilaabay intuu lahaa waa been iyo waa khiyaali wax dhanbayba ahayde wuxuu bilaabay inuu ii gacan qaado oo kelmad haddaan weydiiyo intuu halkaa cunaha igu dhego gidaarka madaxa ila dhacay ya habartii indhala-aantii dad cunnimay ku darsatay ma maqli jirta wuxuu ku darsaday balwadii iyo dumarkii wuxuu ku darsaday gacan qaad inaa lilahi wainaa ilaihi rajiun faadima haddaad kaala sii joogtaada hablaha ceebanaya caawa hee markuu i garaacay oo gowdaa iga saaray aan ka soo baxay ba waan fikira waxaan siri maxaad samaysaa miyaan ka tegi karaya waa ninkaygii ya mida kale ha ilaawina oo military xuduudaha si fiican u suga cid baanan u sheegin qof baanan la hadlin qof aanan ku odhan uu i dilay albaabkaanan ka bixin halkii baa fadhi inaa lilahi wainaa ilaihi raajicuun haya halkii buu igu masixay raalli ahow walaahi boqorad baa tahay gabadhaan dilay aan bixin aan cidna ii sheegin aan isoo dacwoon madaxuu iga dhunkaday bustihii wixii saaray raaligelinta haya gabadhaas ma fariid baa misoo sanbacad hablow ninkii dilay gidaarka madaxa ugu garaacay la joogta laakiin waa raalliyo waa gartaa maalintii labaad baa sidii oo kale gacan qaadkii kii mid kasii daranoo sii laba jibaarsan u dhac maalintii la dudana ku dilay ha maxaa kugu dilaya markaad samaynaysaa laba kelmadood haddaan isweydaarsanaba aan ku idhaahdo xaggaad ka timi ama taleefonkiisa gabadhi soo garaacdan ku gabadhani maxay ahayd aan wax yarba haddaan isdhaafsanaba iimaankiisuba wuxuu ku maqan yahay baynu i dilo dilka uu i dilaya ma aha dhirbaaxo iyo suun yar iyo cunahaasuu igu dhegaya inaa lilahi cunaha haa sidii nin ficiisa ayuu ii garaacay laa xawla walaa quwata ilaa bilaahi alcali cadiim haye cidna uma sheego ma baxo ma hadlo taleefon ma garaaco cid ma idhaahdo ninkiibaa i dilay iisoo orda halkaasaan fadhiya waxaa dhacday siduu dilkii u socday annaan halkii u fadhiyan aamusnaa baa maalin intuu si xun ii dilay gaadhigiisiyo bannaanka yaalaan jajabiyey cadhadii waxaan kula dhacay gaadhigiisii bannaanka yaalay muraa'idihiina ka jajabiyey haya ilahay maad ku leeyahay ninkan ma laysi joogi leyda adigu waxaa ninkan cunaha ku dhegayay waa dhimasho oo ku dilaya ma nagas waa dhimanaysaa faadimo ku soco
walaashay oo Yurub joogtay ayaan la soo hadlo marka aan wada hadli jirnay oo aan wali waxba u sheegin walaashay ba dadkii igu dhaweeyay xitaa uma sheegin marka waa gartaa banu sheegay ku wari maanta waan fatahayaa isaas ay haysata kelmad haddaan idhaahdo ninkii balwad buu bartay dumar buu bartay juuq haddaan u idhaahdana sidii ilmo yar u dhalay bii garaacaya haya walaashay waxay igu tiri waxaad samaysaa aniga hadda ninkii meesha i geeyay sharcina weli ma aan qaadan sharciga maalinta aan saa u qaato waxa igu balana inaan baasaboorkeyga kuu soo diri doono kaa soo kaxaynayo xagee joogtaa markaa fiila waa gartaa waxa dhacday haye baan ku idhi waxaan bilaabay marka wax kasta uu igu sameeyo inaan sii fadhiyo hadduu baxo aanan ku odhan xaggaad aadad ku soo dhaxday hadduu yimaado aan ku idhaahdo ma timi alxamdulilah oo ninkii maad la sii joogtaaba haa waa ninkaygii haya oo aan halkii fadhiyo oy xaaladda sidii tahay oo noloshu sidii ii tahay ayaa walaashay sharcigii ilaahay usoo fudaydiyey sharcigii markii ilaahay usoo fudaydiyey ayay ninkeedii waxay ku tiri gabadhan waxaan rabaa walaashay inaad soo kaxayso baasaboorka qaado waddankii tagto soo kaxayso shuruud wuxuu ka dhigay inuu ninkaygu isoo fasaxo anigu buu yidhi gabadh intaan u tago gurigeedii fadhida reerkeedii kasoo kaxaysan maayo haddii ninkeedu uu soo fasaxo waan soo kaxaynaya waa saxsan yahay waxaa layga rabaa haddaba inaan intaan raalliyo dhaafo lugaha ka dhunkado oo aan ka dhaadhiciyo inaan isaga u dhoofayo haya inankii waxaan u noqday raaliyo inaan soo dhaweeyo inaan si fiican heestaha khadra daahir iyo hirubgeeyo iyo mana nolan qofaanka jaloon loo xaqiiqo bidix iyo midig bidix iyo midig waagii isagu suu dooni jiray inuu hooyadii iiga dhaadhiciyo inaan u tago aan isaga markaa xaaladahaas marayaan ku dhahda haddaan inoo dhoofo ka warasaad u aragtaa markaasuu waa saxeexay saxiixtu qabiltu hey subxaanaka ya again and again and again waa saxeexay again and again hey alla rag ku jiracsana yaa si kasta annaga attentionkaygu uu soo jeedaa markaa wallahi gabadha ninka ragga ka badisa oo gabadha again and again kaga badisa ugu sheekaysa lagu sheekaysta weligaa loos ma ku cuntaa ku soco deetana halkii baan kaga saxeexay markaan kaga saxeexay buu yidhi lambarka dumaashigaasi anigaa la hadlay odhanaya gabadha waa fasaxeeyey markaasaan ku idhi may waayo ma aaminayo waxaan ka baqaya inuu isrogo markaasaan intaan si fiican madaxa ugu soo masaajeeyey taleefonka ka garaacay oon usii sheegaya xitaa waxaan wuxuu odhanaya anaa usii sheegaya waxaad ku tidhaahdaa waan ogolahay waad kaxayn kartaa xilligaa doonto anigu waan fasaxa intii aan usii akriyey buu wiilkii intaa taleefonka ka garaacay oo sameecadda u furay buu intii uu sheegay taleefonkii inaan siiyo xitaa waan u diiday halkii bay hooyadii waxay tiri hadday gabadhani tegayso markuu xaafadoodii u sheegay hadday gabadhani tegayso waa inay carruurteedana siisaa haya dumarow maydkiina qaata caawa shaashada 1 milyan weli may gaadhin miya bis kamila caawa gamcaya idin haya yaa meydka qaadanaya ma ragga mise dumarka caawa mawjigeyga u baqanaysaa maxaa dhacay 1 milyan iyo 500 bay marayaan isla caawa haya ku jacbaan waxaa dhacday halkiiba hooyadii waxay tiri carruurta waa inay ii dhigto aan anigu carruurteeda haysto hadday baxayso meeshay doonta ha aad waa ka igu yidhi hooyaday saasay tiri waxay rabtaa carruurta inaad uga tagto waa aniga tii aan kaga saxeexay inaan tago tu la mida aan kaga saxeexay inaan carruurta yaray ay waxay tiri tayar ha qaadato ta weyn ha noo dhigto waxaan kaga saxeexay haddana inay carruurtu hal meel wada joogayso walaala yihiin aniga hooyaday haynayso carruurtana anigu aan haysanayo acuudu billaahi min ashaytaan rajiim
laxan kaba hadii la saaro saxeexay qabiltu mooyaane maya ma jirtaba malaha ما بدي ذكر نادي حالة الوجرة aada way ka qaato midkiina marka deedna waxaa dhacday halkii baan hooyaday la hadlay magaalo kale magaaladii ahayn baan tagtay guri baan u kireeyey gurigii bay gogladeen carruurtii baan uga soo tegey waan soo dhoof ardi sababaan nimi ardi sababa markaan nimi oo aan rabnay inaan airport ka soo baxno qoladii airportkaan ugu dhegtay oo calaashaan gabadhani ma aha baasaboorkan ma laha safaaradii baa noo timi ma waxay weydiinayaan supermarketkii ka adeegan jirtay xaafaday deganeed halkii ku taalay maxay ahayd su'aalay weydiin maaniga arkayba intii aan ninkan la joogayna waxaan kula joogay dil iyo garaac iyo dumar saa usoo daba dhacaya iyo abiyuus iyo xilligu doono baxayo xilligu doono imanayo maskaxdayduba si kale u shaqaynaysa أقرأ waaniga ku idhi 4 habeen baan safar soo ahaa madaxaasaa bay xanuunaya waxba ma garanayo waxba hay weydiinin safaaradda waxay weydiiyeen markaa xilligii ay isguursadeen walaalkay iyo dumaashigay iyo walaashay ayaa ilaahay iigu beegay inaan taariikhdii sheego xilligay arooska samaysanaya guurka ee kaxaynta dacwadda sidii baa laigu soo daayay wadankii baan imi wadankii markaan imi oo aan xoogaa joogo wadankii oo aan xaafad la joogo walaashay reerka qaba faamilkeeda aad u wanaagsan oo aan xaafadaa joogo oo weli diidma laysiiyey aan laysiin sharci ayaa ninkii ila soo hadlay markaasuu wuxuu igu yidhi walaalo adiga tegey dee nin raga baan ahay waxaan doonayaa markaa inaan guursado gabadha فريد بعد كوسو شغل هاي waxaan ku idhi waan kuu hambalyeynayaa oo guuri haddaad gabadh guursanayso anigana warqadaydii ii soo dir dee waxaas ogolaansho lama dhehe haya markaas hadlo midaan ogolaateen ninkaaga hadduu kuusoo sheego dhaxay waan guursanay waad iga fogaatay ila waad ka yar fogtay midaan ogolaateen miya xaaraantu iskaga ilaaliyo haya waxaan ku idhi waxaad samaysaa haddii aad rabto inaad gabadh guursato waan kuu fasaxay waad guursan kartaa laakiin aniga warqadaydii yar idii soo dir anaga isla meereysanay ku furi maayo waad i furaysaa ku siin maayo waad i siinaysaa walaalkay baan la hadlay walaalkii markaan khadka soo gelinay uu yidhi anu gabadha waan jeclahay naftii ilaahay waxay iigu keentay furi maayo aduu walaalana wixii iiga qaadi kari waaye saan u xiijinayay oon ula meereysanayay ilaahay markii dambe iiga soo qaad raxmadi furan soo qora haya rafran raxmadi ma furna soo qora caawa soo qora waa diimay soo qora ku soco halkaa markay sidaa tahay oo aan shaqo yar markaa ka shaqeeyo ilaa carruurtii hooya ii hayse 2 bilood horta markaan soo maqnaa oo soo sheeka dhaafay carruurtii 2 bilood keliya uu biilkiisa iyo bishii 3aad biilkii ka jaray carruurtiisii haa kaasi nagama mid ahaan walaale ku soco ilaa nin lacag urursanayuu ahaayo aroos isku diyaarinaya hay raxmadi furan bay samuuradii dhan ka dhigeen dagaal walaal bay ku jira caawa hawluhu dagaal culus hay tiimad ka 1 milyan baa ku gaadheen saacad iyo 30 daqiiqo thank you guys allah haydi sharfo intii garaacaysi intiina wali aan sheegreen hadda soo gashay share inoo dhaha intiina kalena sheekada ila gurac qamshaxda ina mari raxmadi furan weeyaan halkii markaan raxmadi furan idhi oo aan wadankii 4 sano joogo oo markii hore waan shaqayn jiray meel yar baan ka shaqayn jiray diidmadii labaad la siiyey oon hadda aanan shaqayn karayn markaa kaam yar baan ku jiray oo kaamkii aan ka baxay oo faamilkii walaashay faamilkii qabay aan reer aad u wanaagsan oo boqorra ay soo dhaweeyeen oo yiraahdeen gurigeyga kaalay cun cab seexo wixii ilaa markaa kaamka la iga siinayaan carruurtaydii u diraya oo noloshu sidaa tahay ayaa islaam baa maalin ii timi islaanta waxay igu tiri gabadh qurux badan baa tahay gabadh akhlaaq badan baa tahay gabadh miskiin oo iska aamusan baa tahay wiil aan eedo u ahay ayaan rabaa inaan ku siiyo dadka aad soo dhex gasho aad guursato 4 sanaad hadda wadanka joogtay aad garoob ahayd waxaan rabnaa inaad hore u socoto waa kii saddexaad magaca soo bixiya faadmo anigu ma odhanaaye waad fahmaysaan baan u malinaya soo qoraya soo qoray waa kii saddexaad
deetana waxa dhacday inan ba iskaaga bartay inankan xaaladaas soo jeexjeexay oo gabadh caddaana buu qabi jiray oo 2 carruur ah u dhashay way soo qoreen laydinku dhufay alla tiinka wanti ku dhigle jecliya ku saco waxa dhacday markaa inankan xaaladaas soo jeexjeexay gabadh caddaana buu qabi jiray 2 carruur ah u dhashay maxkamadda ay isla galeen carruurtii ay ka qaadatay oo qof xaaladu si toos ah soo jeexjeexeen way waa gartaa inankii waan heshiinay inankii markaan heshiinay wax badan bama wada socon oo guur ku heshiinay ayaa waxa dhacday meherkii markaa uu soo doonay waa gartaa waan ismehersanay markaan ismehersanay inankii jabahada bilaabmaysa royal oo hadda sheekadu baad kaanaysaa marka ayaa waxa dhacday halkaa markay marayso oo aan maanta kale ismehersanay walaashii markaa wadanka joogtay hotel noo soo kireed waxayna ii saartay oo koofeer geysay oo tiri caawo waa inaad hotel ku soo dadab gashaa maasha allah walaal fiican bay hotelkii markay noo soo kireysay oo ay gabdho u yeedhay oo la rabo in hotelka la geeyo oo dee sida galbis oo kale xaflad yar oo aan halkaa kusoo dadab galno ayaa inankii intuu taleefankayga soo garaacay buu yiri waan seexanaya hurda ay haysa waan seexanaya hotelka ma iman karaysaa ugu sheeg dadka ninkaagii ood caawa isguursateen oo idinku hotelka soo karayseen oo aad rabtaan isla dada gusha hadduu ku soo waco ku dhaho ma iman karayo hurda ay haysa waan seexda saa ula soco maxaa samayn lahayde ma iman karayo yaa hotelkii waad karayseen waad bukan garayseen koofeerkaad soo martay waad soo buufsatay makeupkii waad soo dhisatay alaabtaadii waad soo diyaarsatay waxaad isleedahay caawo iskala bixi wuxuu yiri hurda ay haysa waan seexanayaa markaasaa u ogow anigu caawo hotel ma imanaya hablihii waxaanu ku nidhi inankii dan buu yeeshay halkan uu ka dhacay maroodi buu ka booday waxaa samaysaan hablihii caawa markaa maadaama dan yeeshay sidii baanu hablihii ku dareerin habeenkii labaadna sidii oo kale waxaa dhacday markaa inaan haddaba guri karaysano maadaama hotelkii 2 habeen ay sidii noqotay in lagaba tala baxo habeenkii hotelkii oo aanu galno hawshii si aanu guri u karaysano gurigii u goglano gurigii u sharaxano amba guri isla tagno maxaa soo socda talo Faaduma gurigii baa markaa guriga la rabo in la kiraayo show inankanba blacklistigu ku jiraayo guri ma karaysan karo lambarkow acuudu billah walaalkiisa wadanka jooga baa gurigii soo kireeyay gurigii markuu soo kireeyay baanu gurigii gogolnay gurigii markaanu gogolnay oo aanu isla aqal galnay oo aanu gurigii tagnay wuxuunbuu u eekaa inankaygana markuu 2 sano jiray yaa 2 sano washmaan bad gashay markii hore waxaan islahaa gabadh caddaana buu soo guursaday qof si fiican wax u dareewalin karayo nolosha wax ka yaqaana xuduudaha silig maaha derbi ku xidhay waxyaabo kale aniga ii sawirnaa waxaan isiri bal hadda adigu la xamee oo heesihii khadrad daahir iyo kuwii xalimo gobaadi iyo bal hadda adigu la xam kartun haba sheeginba dagax tuujin iyo taabasha waa isugu mid bal hadda sawiro adigoo xero military ka soo baxay haddaad waashimaan gasho adoo military ahaayo militariga ka shaqayn jiray haddii lagu yidhahdo waashimaan noqo say noqonaysa adoo military ka shaqayn jiray haddii lagu waashimaan noqo wallaahi kolley dadkii soo maraa laga wareysanayaa waxay noqotay military ka soo guuro waashimaan u guur hoosu sii soco waxaan isiray guriga maad haysane iskala noolow iskaga sabar halkii baan joogay halkii markaan joogay noloshii u sabray masar qufac haa waaba kasii xagga
ayaa waxa dhacday wuxuu ku darsaday dabeecad xumo ma adkaas jirtaa dad wiigna faraxsan wiigna cadhaysan maanta oo kale isagoo qofkii uu faraxsanaa caawa kale qofkii isbedeleed moodaysa inaad ayeydii iyo awowgii geel ka dhacday acuud billahi min ashaytaan rajiim haya waxaan ku idhaahdaa walaa maxaa ku helay markaasuu wuxuu igu yidhi waa dabeecadayda okay ma dabeecadaada waayahay de waay dabeecadaadan kugula dhaqmaya maalintaad faraxsan tahayna hay halow baan ku odhanayaa maalinta aadan faraxsanayna dabeecadaada hadday sidaa tahayna waan kaa aamusaya haya jamaaday deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso nolosha sidaa tahay oo markaan ka aamusana wuxuu bilaabayaa maxaad la aamustay maxaad beryahan ilama hadashida ima jeclide guriga yaa yimaada horta ya markaan anigu kaa baxo guriga yaa yimaada yaad keensataa oo walaalyaan keensan lahaa cidna ma aqaani cid guriga ma keeno maxaan sameeyaa gurigan ma niman baa kugu yimaada ya ma niman baa guriga kuugu yimaada wallahi mushaki baad guursatay faadimo haya war walaa nimana iima yimaada nimana ma aqaani gurigaana kama baxo meelna ma tago shaydaanka iska naarso adigana adigu 24 saacadood ba jooga ya soo adigana adigu 24 saacadood ba jooga haya halkaa markay marayso markaan muddo meeshii isku haysanay ayaa waxa dhacday buu 3 bilood aan isqabno oo aan isku haysano oo aan leeyahay anagu dhaqan kaama lihin oo hidiyo dhaqan uma lihin inaan anagu guriga niman keensano gurigana cidima timaado ayuu tii wuxuu ku bedelay inuu yiraahdo kaale horta maxaad uur yeelan weyday mudawooyin baad isticmaashaa ugaas ma sarin deg soo laabo haya inuu yiraahdo maxaad wax u dhali weyday horta ma kiniin baad isticmaashaa dhasha masbaaraad u dhigataa haya magacaas aad soo qoraysaan bay naga daysaan dad baa loo bixiyay yaan la moodin inaad dad weerarayne biriq bad caawin soo qoraysaan ما يبغاش ما عندي أنا لهجتني لهجتني واشمان حاجة ود بريقات ديوغا كلا هاي ده أنا واحد عادي إنه يراهدو دش واد سكيل على سا ما سميسيد ده أنا واحد تجي قبل ولا شيء بنو تجي أنا واحد أحسن واحد كل هوش ساي هاي ستة اللي بعتها ساي هاي ستة ما صير بقدر صدي أنا ميل نشرين wuxuu ku sii darsaday hadda waxba ima dhalaysid ima jeclid nin kalaad keensataa cid kalaa kuu timaada dhasha isbaaraad u dhigataa walaashay markaad talada siisay waxay ahayd ninka hadda adigoo aroosa saan kuula dhaqmaya haddaad ilmo u dhasho muxuu kuu samayn doona waxaan uu kuu sheegayaba samee oo irbad iskeliba intaad qofkan si fiican u baranaysid talada ma qaadan lahaydeen hablo soo qora وخدمت ولا شاو سوكين دريسي deetana waan ka soo baxay waan fikiro waxaan isiri hadii ilaahay awlaad ka siiyo awlaad wax la diida maaha way saxsantay wallahi horta taladaas way saxsantay qofkeena barato waa muhiim laakiin waa inuu sheegtid waas dhashan waas ka mudula intaan sabarayno waa qosolka may hodhodho aan noqon laabo oo inta ku soco markaan ka soo baxay walaashay waxaan isiri waxaad samaysaa hadii ilaahay awlaad ku siiyo awlaad wax la diida maaha waa irsaaqada ilaahay ku siinayo haddaad is afkarataana is afkarate alxamdulilah haddaad is afkaran weydaana rabalcaalamiin laakiin haddeer way kugu haystay waxba haysa soo gelin gurigii baan tegey ilmihii ayaan caloosha ku qaaday maasha allah qaadatay maalintan qaatay aan u sheegay warqadii waxaan islahaa u farxaya wax yar farxay buu iska dhigay deetana halkiisii buu dagaalkii ka sii bilaabay inankiiba xaggaas uu isaga sii jeedaa iska jiifaa xilligu doonu guriga soo gelaya ma hadlayo maalintii dambe wala ku yiri wax halkan soo fadhiiso waxay waashmaankaagan guriga dhan ilaaliyay fooq dhan buu ilaaliyay ha de laba hore laakiin gabadh cadaan u dhashay buu haystay deetana waxaan ku yiri walaa kaale halkan soo fadhiiso maxaa kugu dhacay hadafka la taagaysa hooyada aabaha baan dilay anigu markaasuu igu yiri may laakiinse
beebigan yarad caloosha ku wadato waa inaan markuu dhasho DNA ka qaado inaan dhalay iyo in kale yaa waa inaan DNA ka qaado inaan dhalay iyo in kale laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim oo ma ogolaatay yaa ma ogolaatay laa ilaaha ila allah naa ka carar lagu dhufay ilaah madin ku dhaari ninkaama la joogi leedi haye waxa dhacday waxaan ku yidhi ilmahan adigaa dhalay meel kalena kamaan keenin waxaasna anigu dhaqan umadihi markii uu lahaa ilmaha iima dhalay sidoo isbaaraad dhigatay eedaday buu garaacay oo waddanka joogta markaasuu ku yidhi kaniinay qaadataa inay ii dhasha ma rabato markii dambe aan dhaqankiisa fahmi waayeen eedaday u sheegay eedaday la soo hadashayna waxay ku tiri dhegayso shalay waxaad lahayd gabadha ilma iima dhalayso ilaahay maanta markuu ilma ku siiyey waayaad u silcinaysaa wuxuu ugu jawaabay eedo maya ma silcinayo waa runoo ilmihii way uureysatay laakiin waa inaan ilmahan soo ogaado cidda dhashay waa inaan DNA ka qaado laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliy alcadiim ilaahu hablaha u geenin noocaasoo kala waxyaaba laga ducaysto wey qof mushaki ah hee wuxuu isku darsaday masayr wuxuu isku darsaday waashimaannimo wuxuu isku darsaday masayr wuxuu isku darsaday mushaki wuxuu dhinacnaba dee uma fiicna meel la qaataba male isku sii yara adkaanay noloshii sii fogaatay colaaddii sii fogaatay hooyadii lama hadlo hooyadii afrikay jirtaa reerkeedoo dhan xajar maxjuur bay kala yihiin walaaladiisa waddanka jooga iyagunbaa daba socda walaaladiisana xitaa waddanka col buu leeyahay markaan ku idhaahdo walaal hooyada waxaan ku haysta eed u degi laadahay ee noloshaada u degi laadahay waa hooyadaaye waalidku xitaa haddaanu ku habaarinoo caloosha kugu qabto cuqubuu leeyahay maad hooyadaa la hadashay nolosha ha kuu degtee wuxuu leeyahay maxaa kaa galay hooyadaa inay dhashay maaday ku dhashay ninaan hooyadii la hadlayn baa adigu la joogtaa markaa hana dhex gelin waayo walaa aday ku dhashay anigu adigaan wanaagaagii rabi inankii markaanu muddo sidii ku wada joognay oo uu sidii kasii fogaanayo uu kasii af adkaanayo ayaan maalintii dambe ku ihi walaa waxaad samaysaa haddii aadan noloshan waxba ka bedelayn maad iska kay furtid hadalkii oon afkayga kasoo dhammaanba warqad intaa dhar leego maaseej ay soo dhacday dhiriran waan ku furay yaa raxmadi furan dhow carartee hablo ma ka dhexi leeda ma soo farxi leeda yaa alxamdulilah bay yidhahdeen ba ku soo waan tegayo gurigii waxaan ku noqday aan markii hore faamilkii aan la joogay baan gurigii ku noqday gurigii baan joogaa deetana gabadhii markaa qofku markaad keligaa tahay waad la noolaan karaysaa laakiin marka aad ilmo kugu soo siyaado reerna qofna culayskaagama qaadi karayo gurigii gabadhii waxay noqotay inay wejiga ii bedesho waxaa la yidhaahdaa tag lama yidhaahdo wuxuu ku tagaa la tusaa inay wejiga ii bedesho inay dareento inay cidhiidh igu hayso inay tiraahdo de hadda faami qof waxaad noqotay culuse hadalka marba hoos iigu dhigto walaal laakiin adigu ilaa waddankiiba soo dhalaysuna cidunba dulsaarunba dadkii ku haydunba ilaa waddankii xayawaanka caloosha ubadka ku qaatay saa u sita maxaa la odhan jiray talow ha aduma xayawaankaas ahay walaal maxaa waaye ilmuun baa siirtay ilaa maalinta 14 gaarsi weynaatay ilmuun